الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. ودرسي صدحات دروس تاني بشا محرم بإذن الله تبارك وتعالى. وحان ودعينا أنسوتيني سند رماضي وهجري وحان هذا السود وينينا سند كلا وعصب أيا إنه بالله بإذن الله تبارك وتعالى. قفك مسافر كايا سفر كجراي markuu gudbo marxalo safarkiisa meel baad u sii socotaa markaad meeshii dhexda aad marayso wuxuu fiiriyaa dariiqa inta u dhiman iyo inta uu soo gooyey. ninka taajirka ama ganacsiga wataana sanadku markuu dhammaado xisaab buu u fadhiistaa, wuxuu fiiriyaa inta uu ribxay uu faa'iiday ama wuxuu khasaaray. haddaba waxaa dhammaanaya sanad, waxaa gelaya caam kale ama sanad kale baa inoo soo gelaya. maalmuhu way isweydaaranayaan, acwaamta iyo sanadkuna wuu isweydaaranayaa. mid baa dhammaanaya, mid baa soo gelaya, inagoo laga yaabo inaynaan istaagin saacad aan isxisaabinayno oo umuurteenna aan dib u fiirinayno. miyayna habboonayn haddaba haddii ninka ganacsiga ku jiraaya uu fiirinayo muxuu faa'iiday muxuu khasaaray, hadduu ninka musaafirkii fiirinayo meeqa u dhiman meequu soo gudbay, inaynu nidhaano cimrigeenna maxaa inoo dhiman maxaynu faa'iidaysanay. haddaba rabbina wuxuu leeya yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsu maa qadamat ligad wattaquu llaha ina allaha khabiirun bima tacmaluun. dadka ahlu iimaanka waxaa rabbi ka baqaa, fiiriyana naftiina yani maalinta soo socoto oo qiyaamada waxaad u diyaarsateen maxaad haysataan oo qof walba aad u diyaarsatay ood kaa horeeya. haddaba ataariikhu lhijri, taariikhda hijriga oo aan ku astaynay ay tahay sanadkan 1443. dadku inta badan tan kale miilaadigaa la yaqaanaa 2021 unbaa la yidhaahdaa ama 2021 2021 ujeedaa. marka taariikhdaas hijriga oo inta badan layska halmaamay oo sanadkii cusbaana aan ku jirno insha allahu tacaala 1443 ay noo bilaabatay ba waxaa la isweydiinayaa hijrada taariikhda waa nuqda oo aad iyo aad u wanaagsan oo mudi'a oo ifaysa oo xayaat nolosha dadka muslimiinta ku jirta weeye. asxaabu rasuulillaahi cahdigii cumar bin alkhataab xilligiisii bay kulmeen, fadhi bayna yeesheen, waxaynan ka naaqisheen ama ka wada hadleen in taariikh dadka muslimiinta loo sameeyo. waxyaabo badan baana lasoo gudbiyey iyo xilliyo badan oo habboon in wax lagu taariikheeyo. waxaana go-aanku noqday in hijradii rasuulka sala allahu calayhi waaalih wasalam in taariikh laga dhigo. maxaa jira xadath cadiimo weyn bay ahayd, dhacdo weyn bay ahayd. nasri iyo ilaahay tamkiin buu muslimiinta siiyey. dowladdii islaamkuna xilligaasay madiinadii ama magaaladii rasuulka ku istaagtay. haddaba taariikhda hijrigii waxaana ku xidhan cibaadaad badan baa ku xidhan. waxyaabaha cajabta badan, cashuuraa ma inaan ogaaneyn haddaan taariikhda hijriga la aqoonin. taasuucaa ma inaan ogaaneyn haddaan taariikhda hijriga la ogaanin. ramadaan lama ogaadeen, xajka lama ogaadeen. haddaba maalmaha in la barto waxaa ku xidhan iyo taariikhda lala socdo cibaadooyin baaba inooga xidhan tiro badan. waxaa jira mucaadala mackuusa waxa la yidhahda, yacni qaab inagu aynu u malaynayno laakiin aan saxsanayn. waxaa dhammaaday sanad baa dhammaaday. markuu sanad dhammaado waxaan u malaynaa inaan noolayn sanadkaa annana cishnaahu wazidnaa caaman, yani sanad baa inoo ziyaaday oo ku farxinaynaa. baadhi iyo waxaa la dhigtaa adduunka wad aragteen, dadku dhalashadoodiibay xitaa xaflado u dhigtaan iyagoo faraxsan oo sanad inuu qofkii. laakiin xaqiiqada markii la yidhaahdo waxaa weynay oo inaga nusqaamay sanad cimrigeennii ka mid baa nusqaamay ogow. imaam xasanulbasri baa wuxuu yidhi ya bnu aadam, binu aadamow, inamaa anta ayaamun, hadda sidaadaba waxaa tahay adigu maalmaa tahay. kulamaa dahaba yowmun dahaba bacduk, mar kasta oo maalin uu ku dhaafo qayb adiga kaa mid baa tagtaya ogow. barada u fiirso hadalkaa. waxaan nahay maalmo la ururiyey inaga dhanba,
maalmahaas mar kasta uu tago hal maalin qayb adiga kaamida baa tagtay haddaba fa kullu caamin yamdi sanad walba oo soconaya oo cimrigeenna ka mid ihi waxaan usii dhowaanaynaa naqtaribu bihi min almowt geerida ayaan usii dhowaanaynaa nihaayatulmataaf ugu dambayntiiyo gebagabada waxaa la yidhahdaa xaaladdu waxay u eg tahay ninka shaqaalaha ah oo qaatay ijaaza waa fasax 30 beri ah ninkaas 30 beri qaatay 10 beri markay dhaafto 10 buu khasaaray oo ka tagtay ijaazadiisii iyo fasaxiisii haddaba 20 marka tagtana 20 baa dhaaftay maalinta dambe 30kii beri markay dhammaadaan wuxuu arkayaa isagoon waxba faa'iidaysanin maalmihiina ay dhaafeen haddaba waa taariikh cimrigeennii oo socda oo tegaya weeye wax lagu farxana runtii maa cimrigaaga oo dhammaanaya iyo adigoo usii dhowaanaya geeridii iyo mawdkii iyo qabrigii ilaahay subxaanahu watacaala hayna badbaadiyo kuwa ka faa'iidaystana haynaga dhigo wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum